soonku dhaqanka qofka waxbuu ka bedelaa caafimaadkiisa waxbuu ka bedelaa dee caafimaadka kollay badda idinku reer suudhan baa tiina waa inay idinku ugu aqoon badan tihin soo maaha nobel pricekii 2016 ee medicinka iyo human anatomiga maxaa lagu qaata 2016kii soon baa lagu qaata nin u dhashay waddanka jaban yoshinori osumo la yidhaahdo professorkaasi baa qaatay nobel pricekii medicinka waxaanu ku qaatay soonka wuxuu ku qaatay waxay qolada biologigu u yaqaaniin autophagy waa system jidhkeennu repairing buu sameeyaa jidhkeennu isagaa dib isu kabo isu repair gareeya marka laba system baa jiro unuguu sameeyo oo qaabkuu dib isugu sameeyaa haddaynu aragti guud ka bixinno waxay tahay maalan haddaynu gaadhi ka soo qaadno gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa haddii uu kolba aad samayso oo cilladoobo marka dambe waxaad tidhahdaa warkan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiise tuuro mid cusub iibso socankaa ma aha system jidhku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inputkiisu ay ka badato outputkiisa energyga iyo wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo waxaa la yidhahaa unugan ha laga takhalluso waa la dilaa dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyay ama cayn ka noqday in la dilo inta la furfuraabaa sbeer baadh laga dhigaa jidhka haddana dib uu isticmaala qayb labaad baa jirta oo ah haddii unuga wax ka midi cilladoobaan maalan gaadhigii aad wadatay baatarigaa fadhiistay maxaad samaysaa ma gaadhigaad tuurtaa mise waxaad tijaabisaa inaad baatariga ka tuurto oo baatari kala geliso autophagy systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybay cilladowdo qaybta cilladowday buu ka tuuraa dabeetana waa loo repair gareeyaa qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jidhku idan waxay leeyihiin systemkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihiin soonka haddaad soonto bay leeyihin systemkan shaqadiisaa fiicnaanaysa dadminis waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin oad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin yacni kullu daalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka waa soon sideeya markaa awal waxay odhan jireen cunada iska daayo liin macaanta cab waxaan iska daayo biyaha cab waxaan iska daayo wuxuu leeyahay professorkaasi waxa ugu fiican 16 saacadoodna inaad soomanaato 8na wax cuntid 16 saacadood ee aad soontay sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liitaa way dhimanayaan unugyada awalba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan kuwa systemkanna waa la kicinaya waxyaabaha kiciya gaajada ka mida bay leeyihin systemkanna waa la kicinaya systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liitaa ama ribeerka u baahan labada shaqaba inuu qabto taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad 2 maalmood soonto shareecadu maxay qabtaa toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idiin sunno ah inaad soontaan maxay isniin iyo khamiis gaalka jabaniiskii wuxuu leeyahy waxaa fiican toddobaad kasta inaad 2 maalmood sidaasi yeesho waxay leeyihin haddii kale inaad bilis ku bixiso bay leeyihin ciddaan labadan soomaynina maxay soontaa bil bay soontaa idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya dad badanoo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah haddii soonka loo badiyo dadka kasar ku dhaca ama waxaana ku dhacaan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalloo la wadaa nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la yidhaha mucjisatu siyaam
dabeetana waxaan sidhi buu yidhi war kitaabkii dib u cusboonaysii bal hadda buxuusta soo baxday eeg 3 sano gudahood buu leeyahay 900 oo research oo cusub oo jaamacaadka dunidu sameeyeen baan helay buu leeyahay oo ku saabsan soonka warramaya waxay leenahay marka soonku caafimaad ku hagaajiyaa wuxuu kaloo hagaajiyaa dee dadka dhaqankooda oo dhan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi qofkaan iska daynin beenku hadalka iyo ku camalfalkiisa aan iska daynin ilaahay baahi uma qabo gaajadiisa buu nabigu tilmaamaya macnaheedu waa maxay soonku waa training la rabo inaad gasho oo intaad trainingkaa ku jirto in noloshaada wax iska bedelaan maxaa iska bedelaya مثلا nabigu wuxuu leeyahay haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa maxay innii saa'im waxaa la rabaa 11 bilood oo kale sidaad u dhaqmi lahayd inaad trainingkan u gasho ninka askariga ah markaaynu rabno inaynu qof askari ka dhigno maxaa la sameeyaa ma la wacdiyaa mise waa la tababaraa haddaynu ka warran waxbaanu kuu sheegaynaa dagaaladu waa wax adag waa la haraadaa waa la gaajoodaa dagaal baad geli doontaa dee waa inaad markaad dagaal gasho nin ragga noqotaa sidaa nin ragga ma ku noqonaya may kula tahay maya waxaa la gelayaa training dhab ah waxaa la geeyaa duruuf gaajo iyo haraad iyo buuro iyo waa la soo ciqaabaa si uu u barto adkaysiga ah hadhow markuu nolosha ka qayb galayo ama dagaalka dhabta ah markuu galo inuu noqdo maxay qof adag ramadaanku iyo cibaadaadku noocan oo kale ay ka tirsan yihiin waa training qofka la siinayo oo sanadkii mar uu gelayo oo kadib la rabo 11 bilooda kale isagoo bartay dulqaadka isagoo bartay waxbixinta isagoo bartay cibaadada isagoo bartay isku xidhnaanta waa midnimada muslimiinta wax tilmaamaya caalamul islaami oo dhan ama dunidoo dhan waxa joogay muslimiin ay mar qudhana wada soomaan mar qudhana wada afuraan bil qudha soomaan bil qudha afuraan